Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkan maanta waxaanu noqon doonaa muuqaal gebi ahaan ka gedisan muuqaaladii aan hore u samayn jirnay. Waxaynu muuqaalan ku soo qaadan doonaa iskuna dul taagi doonaa 3 shay oo inta badan ay suugayaanada Soomaaliyeed qaarkood ku talax tagaan kuwa kalena ay saxandaba ka saaraan. Waxa aan muuqaalkan isku dul taagi doonaa 3 wax oo aad muhiim ugu ah suugaanta ama marka la samaynayo bayt hawraar ah. maadaama aan hore uga soo hadalnay ana filayo in badigiin na daawateen muuqaalo aan uga hadalnay sida suugaantu waxa ay tahay taariikhdeeda, suugaansiyahan yaa la odhanayaa, nafaguro suugaaneed iyo qaybahaas aan ka soo hadalnay. waxaan muuqaalan ku soo qaadan doonaa waxa loo yaqaano xaraf raaca, habdhaca iyo gudaha tixda. magacaygu waa Jamaal Daahir, halka aan kala hadlayaan waa Sariir Media. waxa aan rajaynayaa haddii aad nagu cusub tahay aad muuqaalka like saari doonto, subscribe iyo share-na aad nagu caawini doonto si aan u gaarno himiladeena aan ku hayno hilinka ujeedadeeda. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. waxa aan duubayaa muuqaalkani markii aan arkay in badan oo ka mid ah bulshada inuu iskaga wareegsan yahay mowduucani. aan gudagalna mowduuca haddaba xaraf raaca tixda, maadaama aynu qaybihii hore kaga soo sheekaynay sida abuurkeeda iyo faracyada ay hayb ahaan ku kala aroorto. mar kale tixda waxaa laga rabaa oo la'aanteed ceebi imanaysaa waa xaraf raaca. xaraf raacu waa xarafka ay tixdu ku socoto, kaas oo meeris walba laga rabo ugu yaraan hal mar. waa xarafka ay tahay in abuurku ilaaliyo marka uu doorto. xarfahaas ayaa kala ah shaqal iyo shiibani. hal abuurku wuxuu tixdiisa u isticmaalayaa shaqalada. waxaa laga rabaa inuu adeegsado 5 shaqal ee af Soomaaliga, kuwaasoo ogolaanaya in tixdiisu ay socod badan samayso, marbana uu mid isticmaali karo. shaqalada afka ee 5 ahna waxaa ka mid ah a, e, i, o, u. ayaa loo ogol yahay in hal-abuurka suugaanyahanka ahi uu isku dhex wado meerisyadiisa, tixdiisuna ay ka kooban tahay, isagoo ilaalinaya miisaanka, habdhaca iyo shaqalada. waxaanay isku yihiin hal xaraf. oday waaye aragaan ahoo ayni weyn jiraye, markaad oodkabood tahay tashigu waa in kaa maqane, ardayahay aqoonsada cilmigu aafa waa jaale. meerisyadan hore waxa ay ku socdaan shaqalada, waxaana u furan hal-abuurka inuu isku dhex wado dhammaanba shaqalada afkeenna hooyo. waxaa jirta qaybta labaad ee tixda loo abuuro xaraf raaciida, waana mid ka yar adag taas hore, sababta oo ah waxaa laga rabaa hal-abuurka inuu hal xaraf oo shiibana ah uu tixdiisa ku ilaaliyo bilow ilaa dhammaad. shiibanayaasha af Soomaaliga sida ba, ta, ja, xa, kha, da ilaa ya waxaa laga rabaa in tixda uu tirinayo in meeriskiiba ugu yaraan laga helo hal mar, ugu badnaana 3 jeer. marar muhiima aha xarafka aad dooratay halka uu ka gelayo meeriska. waxaase waajib ah inaad meeriska laga waayin xarafka aad ku socoto ugu yaraan hal mar. meeriska xaraf raacuna waxa uu geli karaa xagga hore, xagga dhexe, xagga dambe iyo intaba. gacantayda kuma tolanin, gacalkayna ima siinin. xarafka ga ayay ku socdaan meerisyadani hore, waxaana meeriskiiba ay galeen hal mar. haddii tix laba dhudle ah ay tahayna 2 jeer ayay ga'du geli lahayd. haddii ay 3 lahaan lahaydna 3 goor ayay geli lahayd. waxa aan filaya in intaasi nagaga filan tahay markaasi xaraf raaca. haddaba aan hadda u tegno gudaha tixda. dhud waxaan ula jeednaa hormo meeris kasta oo xaraf raac qaadan karta. meerisyada qaar haddii ay leeyihiin hoojis iyo hooris kala gaaban, waxaa jira kuwa aan hoojis iyo hooris lahayn, xarafkiisa uu 2 jeer ku soo noqonayo. si markaa aynu si guud iskula fahanno, dhud waxa ay noogu taagan tahay qaybaha meeriska ee xaraf raacu ku taagan yahay. 2 qaar ha noqdo hoojis iyo hooris, ha noqdo ama wax ka badane. dhud waa hormo kasta oo meeris ka mid ah, taas oo uu si quman xaraf raacu u raacay. meerisku markaa waxa uu noqon karaa 1 dhudle, 2 dhudle ama 3 dhudle. dhud walbana waxaa laga rabaa inay si madax bannaan u wadato xaraf raaciyeeda. tixaha qaar ayaa jira dhuddoodiiba ay rabto 2 goor in xarafkii ku soo noqdo. tixaha noocaasana waxaa ka mid ah heellada, dhaantada iyo tixaha la dhismaha ah. godadka caynka ah ee aynu ka sheekaynaynaa waxaa dhici karta in dhuddii laga rabay 2 goor xarafku ay marmar tuurto xarafka. taasna waxa uu qariya habdhacooda wanaagsan ee ma aha wax quman. tusaale ahaan, ma ka shaad dilataa dhololaysa, ma dhimbiil cishqi baa ku dhalaashay, ma ilmuu dhardadaa dhabankaygu soo imaad dhigan waadhka hilowga. meeriska ugu dambeeya ee soo imaad dhigan waadhka hilowga
qaarkiisa dambe ayaa lubiyey dhacdii ay tixdu ku socotay. quruxda iyo habdhaca wanaagsan ee tixda ayna u sii xoojisay dhacda ku dhex jirta weedha waadhka ayaa u qarisay hal abuurka in dhacdaa maqan uu tago laga yaabaa. laakiin tani waa tusaale uune marar badan aysan oo kale ku dhacdaa tixaha labadhulleyda ah ee isqarsan kara. si wacan ayaa arrintaa lagu arki karaa buyuuta qaraamka ah. tusaale ahaan, ceelka waan ku dhasho ma caayi karee sideen qerigaab ka yeeleeyey, weeg baan war idaa dul weehanayee tanina ma wadaamo gooba. tix albuddo ah inta badan uma wanaagsanaado in xarafka ay ku socoto meerisku 2 jeer ama ka badan la geliyo. marar qaarna culays ayay keentaa aan si aad u muuqan. tixda haldudda ah xarafka ay ku socoto inuu 2 jeer ama ka badan galo isla xarafkii meeriska culayska ayay ku keentaa. laakiin waxaa jira midaan isaga culays ku keenin, kaas oo si aan iskula fahanno aan ugu yeedhnay haltar ama asho. haltar ama haltarasho midka aad tidhaahdaba waxa aan uga jeedaa xaraf u eeg midkii xaraf raaca tixda ahaa oo isku mid ah hal meel tixda ugaga soo noqnoqday. xarafkaasi soo noqnoqday haddii uu haltar yahay waxba tixda yeeli maayo quruxdeeda ama miisaankeeda. waxaaba laga yaabaa inuu u siyaadiyo qurux cajiib ah oo aan si dadku wada filan. tusaale, didii hungurow didii, kal daaf hagayow didii, dhagaa dadanow hiddii didii, dareenka bukow didii. siday u dallaysan tahay, siday u degmaysan tahay, siday u dugaashan tahay, siday u dalaysan tahay. labadaas soo dheh hadraawi marna soo celceliyey didii, mar kalena uu soo celceliyey siday. waa haltarasho uune waxba kuma soo siyaadinayaan haraf raaca, wax foolxumo ahna uma keenayaan. mararka qaarkoodna qurux ayaabay soo kordhiyaan. waxaa kale oo jira marar ay erayada caynkaas ahi ay dhismaha tixda dheeraad ku keenaan, kuwaas oo noqonaya dibraacayaal laga yaabo in laftooda ay qurux u harsadaan tixda. tusaale ahaan, aduu kuu balanbadaadhe, aduu kuu beera qaadhe, aduu kuu baaqayaadhe, bastaa weeyaan dartaadhe, badbaaduu kaa rabaadhe, buraaqayso jawaabdhe, mar wuu baxaa degaadhe, mar wuu isku buuqayaadhe. dibraacayaasha xagga dambe ka kale tixdani waa ku dheeraad meeriskii miisaan ahaan. wax si ceeb ah loogama yaqaano tixda dhexdeeda. qodobka si aan hadalka ku keenay ee ahaa in culays uu keeno. inta goor ee xarafraac isku mid ah la geliyo fadaha leelayaasha ah, labada dariiqee aan soo sheegnayba aan ahayn kaas weeyaan ka culayska keenaya. walu tiirso tusaalaan hoose. gabadhii hay garaysani gurigiinna goortaan gaadhiga ku soo galay. saddexdaad meeris ee hore ayaan tusaale uga dhigi karnaa waxaan ka hadlaayo, waxaana laga yaabaa in si kama ah aad sugaanta ugula kulanto foolxumadaas aan la eegin. waayahay habdhaca. habdhaca tixdu waa mid abuurta kala duwanaansho badaha maansada ah. habdhac kastoo ay tixi leedahay waxa uu maqalka u gaadhaa hab isku wada sar go'an. taasi waxa ay fududaysaa in qof suugaan aqoonka ahi uu sahlan u karan karo badaha ay tahay tixda la tirinaya. haddii meel aad gacantaada uga garaacdo si isku mid ah kadibna aad in yar ku wado dhegtaadii, waxay la qabsanaysaa jabaqdaa isku sida ugu soo dhacaysa. jabaqdaas oo isku miisaaman, aan kala degdegayn, wakhti kala daahayn, kala cuslayn, kala fududayn. sidaa adiga oo wada haddii aad dadejiso garaacii gacanta, jabaqdii waa isbeddelaysaa, waayo waxba meeshiis dhimay, kaas oo wakhti u qaadan lahaa dharar ay meeshii gaabini timid. sidaas la mid ah ayay tixda habdhaceedu uu dhegta u yahay. 2 tixood oo tirada xarfaha isleeg ayaa habdhacooda kala gedismi uu markaa ku tusayaa farqiga u dhexeeya, kaas oo marka la sii darso uu keenayo wakhtiga jabaqda ee degdega ah ama gaabinta ah, isaga oo ku sii sal leh habka ay tixdu u qaadanayso shaqal dheerayaasha ama shaqal gaabyada iyo iska xigxigooda, kala hormayntooda ama kala hormarintooda iyo calam. habdhacyada gudeed marka laga tago, si guud tixda Soomaalidu waa ay samaysaa 3 habdhac. 3 habdhac oo ku mas'uul ka noqonaya in xaraf raac la ilaaliyo. habdhac marka aan leeyahay waxa uu noqonayaa habka uu dhaco meeris buuxa, meeris dhiman ama meeris taxan. meeris buuxa waa ka jeeftada oo kale. meeris dhiman waa wajiska gabayga ama badaha labada qaar leh ee isku baahan sida masafada. meeris taxanna waa meeriska gabay. meeris taxanna waa meeriska gabay ama kabada ah ee dhowr goor isku sar go'an looga sugayo xarafkii inuu ugu dhaco meelo cayiman meeriskii. habdhac kasta markaa waa inuu wataa xaraf raaci ah tixdiisu ku soconaysay. inta badan ceebi kama taagin habdhaca tixaha haldhudleyda ah ama labadhudleyda ah. inkastoo mararka qaar lagu kalsoomo dhudda dhacday iyo halka xaraf ka raacay halabuurka,
adigoo si kadis amar ula kulmaya gabay laba dhac ah oo wejiska oo keliya oo xarafkii ka wada raacay gabyaaga. haddaba qaybta ugu muhiimsan ee ciwaankan aan rabno inaan ku caddeeya waa gabayga saddex dhaca ah iyo sida uu dhisan yahay. tusaale ahaan, rag kaa tegay rafiiqnima tihiin talo lagaa reebay. meeriskan sare abwaanku waxa uu adeegsaday xarafka r xarafka ra waxaana uu ka dhigay gabay saddex dhac ah. inkastoo ay yartahay suugaanta Soomaalida in gabaygu inta badan saddex dhac ku bilowdo inuu ku dhamaado, haddana waxaa alabuurka saddex dhac samaynayaa laga rabaa in meerisku noqdo saddex dhac kala madax bannaan. dhac kastana ujeeddada uu buuxinayo waxa kale oo reeban in meesha lagu arko xidhiidhiya ama la isku daba taxo xarfo aan macno isku samaynin meeriska ee xaraf ahaan uun meesha u yaalla. tusaale ahaan, meeriskan xasan iyo xuseen iyo xirsaa ka xasuus badane. meeriskan hore tiro ahaan 4 xa ayaa ku jira. taas macnaheedu ma aha inuu yahay meeris gabay ah oo 4 dhac ah. ma aha 4 dhac, waa si meeris gabay ah oo 2 dhac ah. si xarafka xaada ah ee xidhiidhka ku noqday maruu yahay xaraf raac, marna uu yahay mid loo isticmaalay magacyo. ma banaynayo in 4 dhac yahay meeriska. gabaygu marka uu 2 dhacayo ama 3 dhacayo na lagama rabo wax xidhiidhiya ah. 3 ridmo oo isbuuxinaya ayaa laga rabaa marka uu 3 dhac noqonayo meerisku, waana inuu qaadan karo astaanta hakad. 3 waaxood ee meeriska 3 dhaca ahay waa in mid waliba ku siinayaa macne buuxa, ka ku xigana aanu uga baahan wax xidhiidhiya ah. baleeg tusaalayaashan oo kale: wiil hagafle aar soo handali hiija qaba reemi. mar kale, rag carfile cabdina ii yaqaan ciir ma siin karo. mar kale, qar hadumo qiyaamana ha dhaco qoysnayu hadhin. dhammaanba meerisyadan kore qaabka ay u dhisan yihiin ayaa laga rabaa tixda 3 dhaca ahi inay u dhisnaato. tixdase inta xaraf raacee jirta meeriskeedu kuma noqon karto 4 dhac ama wax ka sii badan. gabayga Soomaalidana waxa ugu sarreeya kaas 3 dhac ah, welibana waa 2 qaab isaguna kaas aynu soo aragnay iyo kuwa kale oo leh ta ku dhamaada, kaasoo laftiisuna abrihan dambe badnayn lehna 2 dhac iyo 3 dhac ah. allah xoog leh muudka xarbi leh tegis xajkii baa leh. mar kale, hanaan quruxsan hooshaar gubeed hodan dariiqaa leh. fiiro gaara, arrintan waxa meesha ka saaraysaa in gabayga Soomaalidu uu leeyahay habdhac 3 ka badan. qofku ma aha inuu iska tirsada xarafyada ee habdhacu, waa inuu waafaqaa meeriska. shuruudaha aynu soo sheegnayna wuu buuxiyaa. tixraaca muuqaalkanina waa qaybaha kala duwan ee baraha internetka iyo buugaagta kala duwan ee qoreen suugaanyahanada Soomaaliyeed. aad baan idin salaamayaa. waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka like saari doontaan naguna soo biiri doontaan insha Allah.